gaaritaanka boqolkaaga gool ee ugu horeeya kooxdada imise kulan ayay kugu qaadan karaysaa. liiskan oo ah mid markaasi ka kooban ilaa iyo 5 ciyaaryahan dhalinta dhammaan tartamada goolasha markaasi ku aadan boqoleyda waxaa hogaaminaya laacibka lagu magacaabo Erling Haaland kooxda kubadda cagta Manchester City sida laga warqabo dhawaan ayuu ku soo biiray 2 xilli ciyaareed ayuu ku guuleystay goolalinta horyaalka Premier League dalka Ingiriiska kii saddexaadne hadda ayuu soconaya. dhammaan ciyaaryahanka kulamada kala duwan oo kooxda u saftay wuxuu raadinayay gaaritaanka ilaa iyo 100 gool kooxdiisa. 105 kulan ayay ku qaadatay in uu gaaro ilaa iyo 100 gool ama dhalinta goolashaasi marka la eego isagoo kooxda ku cusub. Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale liiskan ku jira markuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Real Madrid wuxuu markaasi ahaa mid aad ugu wanaagsan dhalinta goolasha. haddaba in uu gaaro 100 goolal Cristiano Ronaldo waxay ku qaadatay ilaa iyo 105 kulan. Luis Suarez ayaa sidoo kale booskani kaalin saddexaad kaga jira. Xiddiga reer Uruguay ayaa dhalinta goolashaasi boqoleyda dhankiisa waxay ku qaadatay ilaa iyo 120 kulan. 120 kulan ee ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Barca oo u saftay dhammaan tartamada ayuuna xiddigan u ansixiyay ilaa iyo 100 gool taasoo ka dhigan in uu liiskan kaga jiro kaalin saddexaad. Zlatan Ibrahimovic ayaa booska afraad qayb ka ah markii la eego liiska ugu dhaqsiyaha badan ee dhalinta goolasha boqoleyda kulamada kooxiisa. haddaba ciyaaryahankan xilligii kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa laga soo qaadan karayaa 124 kulan ee ugu horeeyay dhammaan tartamada ayuu ku guuleystay inuu dhaliyo ilaa iyo 100 gool. Cristiano Ronaldo ayaa mar kale liiskan ku soo laabtay xilligii kooxda kubadda cagta Juventus uu ku biirayay 131 kulan ee ugu horeeyay kooxda kubadda cagta ee Maroda Duqda dhammaan tartamada ayay ku qaadatay inuu gaaro ilaa iyo 100 gool. fiiro gaar ah liiskani ma ka eegayno ciyaartoyda kooxahooda ee hal xilli ciyaareed dhaliyay goolasha ugu badan markii la eego naadiga ama gaaritaanka ilaa iyo 100 gool ee waxaan ka hadlaynaa ciyaaryahan kooxdiisa markaasi ku cusub kulamada iyo tirada inta leeg ee ku qaadatay dhalinta goolasha. tusaale ahaan Haaland 105 kulan ee ugu horeysay kooxda kubadda cagta Manchester City dhammaan tartamada ayay ku qaadatay inuu gaaro ilaa iyo 100 gool. xilligii Ronaldo uu ku biiray kooxda kubadda cagta Real Madrid 105 kulan ugu horeeyay ayay isna ku qaadatay dhalinta goolashaasi. waxaa jira ciyaaryahano kala duwan oo iyagu qaab ciyaareed aad u wanaagsan kooxahooda ku sameynaya sida Kylian Mbappe oo hadda markaa rajeynaya in kulamada ugu yar uu ku gaari doono liiska ciyaartoyda dhaliya boqoleyda xilli waqtigii uu ku biiray kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ku qaadatay in 100 gool uu gaaro ilaa iyo 137 kulan.